السلام عليكم. waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo 7 rule oo haddaa samaysid noloshaada ay straight ku noqonaysa insha Allah taala ka faa'iideyso. tan koowaad let it go. wixii shal dhacay ama xumaatada shal ku soo gaartay maanta nolosha aad ku nooshahay wax gaarsiinin wixii ahaaday way ahaadeen shay weligeed ma soo laabanayso ina iska daaysid oo iska ilowdo iska cafisid maahane maanta yeena waxba ku gaarsiinin shalay weligeedna kuma soo laabanayso waxna kama qaban kartid wixii dhacay iska cafi ajirki la tag maaragtay man cafa wa aslaha fa ajru ala Allah ka fiirso ilaahay ina ajirka agtiisa ku yaala ka fiirso xataa wakaas bini aadanka waxba ha u geysanin let go caafimaad oo dhan maalinta shaygaas iska cafisid manuu cafinayso qofkaas inuu ku dhaho qof wanaagsan ahayd ama xumaatadii ku soo gaartay liwajhi Allah subhanahu wa ta'ala shaygu cafi horumar oo dhan maalintaas u bilaabana. tan labaad ignore them. qof alle iyo qofkii negativity ku keenaya ignore garee. qof negativity qof kale ka sheegay ha dhageysanin xumaatadu ku sheegay adna bariyo ka sheegaya ignore garee kaliya waxa dhageysataa oo dhag u lahaataa wixii noloshaada awood ku sameeyay wixii mustaqbalkaaga wax ka bedelay wixii aakhiradaada khayr ka dhigayo kaliya dhageyso. every negative noloshaada soo maray iska ignore garee kaba dhig inayna ahaanin adna ha dhageysan dadka negative ka ha noqon waxa sheega markay aragtid naftaada waxa ku qasataa inay nolosha meesha qurux ka aragto weliga meesha foolxuna ka harkin hatta qof bani aadan oo nolol negative ku nool hadaa aragto u ceeb astur ilaahay dartiisa ugu ceeb astur ilaahay adigu taada asturaya adaa horumar helaysid marka kaliya waxa dhageysataa codka adiga ku wanaajinayo wanaagaaga khayrkaaga cilmi adduunyo aakhiro maxaa ku wanaagsan dhageyso maxaa ku xun ignore garee so ignore. tan saddexaad give it a time see wax kasto adduunka time ka daawo waay shayga jawaabta maanta dhiibi lahayd sug bari adoo ka dhigan oo ka macquulsan dhiib noloshaada si kastay kaaga qasan tahay hadaa qof isaysatiin isla markaas jawaab ha dhiibin sug time see fahan maxaa adiga ka qaldan oo qofkaan dhibsaday iyo maxaa asi ka qaldan oo adiga kugu bushgareynaya marka wax kasto oo time la siiyo adaa winnerka noqonaysid noloshaada wax kasto ku salaysan time see oo degenaanshada wax weyn waay ina isdejisid oo dhaad umurta intay u socotaa maxay tan ahayd maxay ka ahayd laakiin hadaa xanaaqdid oo shaydaanka maanta dhan ku horseedaayo 100 qalad aa galaysaa kii laga qalday ka weyn marka wax kasta time see qalad kasta xumaanta kasta oo dhaca ka fikir time see fikir see shayga aa time gelisid ama aa u sabartid oo ka aamustid meel weyn aa ka gaaraysaa adoo ka deganaan badan adoo ka faham badan aa jawaabta dhiibaysaa waana mid ku anfacday noqon. tan afraad don't compare. weligaa ha isla barbar dhigin bani aadan kale ha isla barbar dhigin qofka kaliya oo isla meel dhigaysid waa inaa shalsa ahayd ay maantaada ka fiican tahay maalin kasto aa ku socotid bil istimraar horumar taqaddum maaragtay inaa wax qabsatay marka naftaada la tartama bishii hore intee ahaa sanadka hore maxay ahaa maanta maxaan bartay maanta maxaan qabsanaa maxaa igu soo zaa'iday diiniyan iyo adduunyadaba diintaada hadaanan cilmiga baran ilaahay bari uu ka xisaabsana sharciga ilaahay maxaa u baran weysaa lagu leeyahay yawmal qiyaama marka wixii ilaahay soo dejiyay adduunyada ugu noolaan lahayd ma taqaana adduunyadaada waxa ku horumarin lahayd ma samaysatay laakiin hadaa qof kale ka xisaabtid noloshaas ay qabtaa nin hebel ay qabtaa baabuur oo qabaa ani ma haysta hadaa tiraahid depression ku dhacaayo cudurrada nafsiga kugu dhacaayo shaydaanka kugu soo hoos dhuumanayo weligaana qofkaas wax la siiyay ma helaysid marka kaliya naftaada isla barbar dhig. qof kasta imtixaanaad u gooniyo leeyahay qof kasto mahma uu shanigiisa yahay oo meel gaaray ama wax qabsaday mid kastaba imtixaan ku filan oo gacanta ugu jira sababtana waxay tahay inuu imtixaankaas ku baaso struggle arko oo dhaho okay shala meeshaas aan taagnaa waxaana qasaare waxaana kare adduunyada daare imtixaan waay qof kale imtixaankiisa hadaa isla barbar dhigtidna laba imtixaana ku jira kii adiga gaarka ku ahaa iyo mid adiga isku keensatay maanta dhan ishaada ma degsana diintaada hoos fiiriya ku leedahay qad nadar hoos fiiri macnaheedu waxa waay ma aragtay taada ku mashquul maaha kaliya basarkiina qarinaysid taada ku mashquul meel sare aa gaaraysa ha ka xisaabin naftaada qof kale meeshuu gaarsiisan yahay adiga taada wax ka bedel shaladaada maanta ha fiicnaato berrina maanta iyo shalaha ka fiicnaato. tan shanaad stay calm. qof degan noqo maaha shay kasta inaad daqiiqadaas ogaatid ama xalkiisa heshid maaha degenaanshada wax weyn ku jiro caqli fikiraa ku jiro waa natiijada ka fikiraysaa see wax yihiin maxaa ahaan jiray waxyaabo badan xeerinaysaa markaad degan tahay degenaanshada
waa happiness, waa farxad, waa qurux ilaahay dhiibo. marka isdeji umuur kasto maahan daqiiqadaas inaa ogtahay. ilaahay laga yaabay waxyaabaha qaarkood kuguma talagelin inaa maalintaas ogaatid, gadaalaa ka ogaani. qof kale dhibaato uu kuu keeno ama hadal uu kuu keeno, qof kale ha kala kordhicin. sug time c kan qabar kuu keena suu yahay, waxaan seeyin intee u socdaan. deganaanshada farxad aa ku jirto, surroundingkaaga ogaanaysaa. markaad degan tahay maxaa midigta kaa jiro, maxaa bidixda kaa jiro, waa kala fahmaysaa. umuurta miisaanaa saari kartaa. laakiin markaa kacsan tahay, hagmasee waxa dhahay kan see tahay, maxaa kana see u dhici kartaa, babababa markaa tiraa confusea sii qaadee. tan lixaad is on you. farxadaada maaragtay iyo happiness-kaaga waa mid adiga kuu taala inaad keensatid. sharciyada ilaahay subxaanahu watacaala soo dejiye waa inaad baratid. alaa bidikri allahi tadma-inu alquluub. qofka ilaahay ka fog farxad maba haystaba. waa farxadaada inaad raadisid. miisaanka ilaahay ugu talagalan waa inaad ka raadisid. dad badanaa waxay umaleeyaan haddaan xoolo yeesho, haddaan kan yeesho, haddaan naag hebel guursado, haddaan nin hebel guursado farxadaa taalo. right markay waxaas helaana ma faraxsana. naf kasto ilaahay baa abuuray, qalbigaa ku dhex jiro. qalbigaas ma degaayo maaragtay ilaa bidikri allah. adduunka mataaciisa oo dhan haddaa heshid ma ku farxaysid. inuu adiga content ku tahay ilaahay subxaana watacaala cibaadaadkiisa aawadid. diintana midaan la adkeynayo mataqaana xaraam wa xalaal maaha. waa connectiona ilaahay subxaana watacaala la leedahay. maanta haddaad dembi gashay ka tooba keen. haddaa wax saxday alxamdulilah, haddaa wax qaladay ilaahu rabbi raxmaano iga cafi. intaa awoodana isku sax. bani aadanka waa back and forth maanta dhan, siraac maca shaytaan. subxaana watacaala la sheekayso umuurtaada, xaaladaada maaragtay kala hadal. maaha keliya maalintii musiibo weyn dhacday inaa gacmaha taagna rabbi hala ii duceeyo, qur-aan hala ii saaro. in daily basis maaragtay waxaa isku daydaa 10 daqiiqo adkaartaada subaxdii akhri. shaydaanka oo dhan iska xayir. waa shaydaan noloshaada interference ugu sameynaa. adkaar mucayana akhrinaysa, adkaari sabax iyo masaa 10 daqiiqo ma qaadanayso. shaydaan oo dhan saasuu ku xayiran yahay. naftaada dhan possessed maaha, nadiif. malaa'igaa ku xafdinayso hore gadaal dhinac kastay kaa. malaa'igta haddaad adkaarta akhrin waa kaa yaacayaan. shaydaanna wuxuu rabo kaa samaysanaa. happiness-kaaga is adaa ka mas-uul ah, adaa keensan kartid. yaa rab haddaa dhahdid yaa cabdi oo ilaahay subxaana watacaala ku dhahaa. danahaaga oo dhan sheego. ilaahay ma ku dhahay tiya iisoo laalaabata ama kiyaa waxaan i weydiisanaayo. right there and there ilaahay wax la weydiista lama qasaaro. waxa ilaahay ka malaysidaana hele. ilaahay wuxuu dhahay cabdigayga wuxuu raba ha ii maleeyo, wuxuu ii maleeyo ogaa. ilaahay cir iyo dhul inaa ka helaysa male, janno inaa gelaysa ka male. midda ugu muhiimsan waxay tahay bini aadanka hal meelaa jirto. hadduu meeshaas ka nadiifo oo nadiif ka noqdo, noloshiisa oo dhan nadiifay noqonay. waa halkan. qalbigaaga isku day daa'iman inaad tirtirtid. dhibaatooyinka kusoo gaarana tirtiri cafi. yaa taa adig gacantaada geysatay. dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaas. waxyaala iman constantly ilaahay gacmaha u taag. maaragta la sheekaysa yaa rab yaa allah yaa maaragta dheh la sheekaysa ilaahay subxaana watacaala. dunuubtaada ka tooba keen. farxadoo dhan maalintaasay bilaabanay. maaragta dadkan ku dhahay waa niyadda ay kacsan. maxay ahayd isheeg maxay ahayd cudurka dadka ku dhici jiray, yani inay wadamada kale rabaan markay rabaan inay tagaan. buufisaa ku dhacay. buufis waxaa waaye bucdi alqalbi can illah subxaana watacaala. waaye qalbigaaga waxaa ku xirtay gaalkaas wadankiisa inuu habanas ku yahay. bas wixii aa qalbigaaga ku xirtay aa ku imtixaanaane. marka arrinta qalbiga arrin weyn waa, keligeedaa sharaxaad u baahan. qofna wuxuu leeyahay hebel aan jecelahay, haddaan asiga waayo qodya la amri waa. asiguu u dufoobaya, wax kastuu sameynaa, sharciyada ilaahay ku xadgudbaaya, ummaduu ku xumeynaya because hebel aan jecelahay. wayaareed hebel oo asiga jeclaan lahaa. hebel maba usoo jeedaba. sharci alla iyo sharciga ilaahay soo dejina waa lagu xadgudbaaya. as qofkaasaan rabay ama ha la qabo ama yaan la qabin. marka ilaahay subxaana watacaala maaragtay sharciga asaa soo dejistay. sabab kalena looma soo dejin. waxaa loogu soo dejiyay inuu bini aadanka uu dariiqa sax ku socdo. sheeko yaraan idiin sheegaan oo markasta aan ka hadlo. telefonaadka iyo mashiinadan aan soo gagadano waraaqada ku dhex jirto. waraaqada waxay ku leedahay saan u isticmaal, voltiga korontada saas ha noqdo, meel sara saar, saa mashiinkaas kugu shaqeeyo. bani aadanka waa mashiin ilaahay soo dira waaye. kitaab ilaaha la soo daba diray. ilaahay sharcigiisa waadix waaye. yaa shaydaanka waxyaabaha uu kuu baraamis gareynayo xataa xayaati dankuu ku gelinaya. ilaahay subxaana watacaala raxmo iyo wanaag iyo horumar iyo beriyo jannaatin wa nahar fii maqcadi sidqan cinda malikin muqtadir aad tagtid oo ilaahay kuu ballan qaada. xaqa adigaa u leh. is on you. weyga aad dooran lahayd. weygana mararka qaarkood adoon ogeena ka baxee. is okay. ka tooba keen. ilaahay weligaa ma ku dhahay maanta dhanay tooba keenaysid. weligaa toobada ilaahay ha ka dhaqaajinin xataa ya'tiika alyaqiin. yaqiinkana waa mowt. inaad dhimatid waay. inaad dhimatid maahan weligaa haysmahadinin.
maanta dhan ilaahay subxaana watacaala sheegaan muxuu ka yiri xataa haddaad ogeen baar haddaad dembi ku dhex jirto waa is ogtahay is okay ka tooba keen bas tan ugu dambeyso oo toddobaad waa smile ya smile adduunyadan waa bukratan waa cashiya waa ayada dhan qadarteeda aad iyo aad u yartahay aad iyo aad qadarteeda u yartahay adduunka marka shalay iyo way ahayd iyo dambiyadaasaa dhacay iyo adduunyaa la dhacay xisbi hebelaan ahay iyo kan iyo يعني هقول قريني smile يعني مهما كان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إلهي هدي أكتد الدنيا وحكتها هاي قف وحعوني لهاد مالي قال إيه مسلم هدو حوذ عنويان ماشي في عناد أون لقد منينين أو ميل وقصر نولش رنتا ولي وإيماني تنسوا معها بريا أسويديني نولش رنتا مركب لعبتو maalin may ahayd maalin iyo galabteed may ahayd ay noqonay ayadan dhan aan aragto la isku dilaayo wax kasta loo sameeyay waa la laalaabi doonaa waxay tahay ma jirto adduunyo wax qof la siiyana wax weyn lama siinin laakiin qofkii aakhiro ku dheer wax weyn uu ku dheeriyaa nololoo dhan aan dhamaanin uu ku dheeriyaa ma kaani adduunyadaada tahay si alla iisay tahay xaaladaada alxamdulillaah dheh ilaahay wuxuu dhaha koo ii xamdi waa u badiyaa la in shakartum la aziidannakum xamdiga waa cibaado weyn ay dadka badankiisa oo ilaahay dhaha qaliilun min cibaadiya shakuur in yarba saa ii mahad celiso mahad celinta haddii fahmi lahayn ummadda in ilaahay subxaana watacaala mahad celintiisa meesha lagu gaaro cibaadooyinka dhan way kasoo fariisan ilaahay maanta dhan u mahad celin lahaayeen hadda fiiri kilidaada oo kale kasoo qaad maalintii waxay isdhaqaysaa 32 goor miya 31 qofka kilidiisa waayeyna yaa 31 miya 32 maalinbo hal maraa laga dhaqaa su u xanuunsanayo marka kilidiisa la dhaqaayo adigana maanta dhan markay wasaqdana kaa soo bixinaysay kuu shaqaynaysa war ma haysid jirkaaga oo dhan mashiin waay dhiigga midaa qaadaya midaa maskaxda midaa fikirsiinaya midaa adig ku dejinayo midaa cuntada ku testigareene ilkahaaga carabkaaga fiir yaa ku siiye alxamdulilah dheh mahmaa kaani ilxaal ilaahay inaa mahad celisid hawaayin am aadan war u haynin aafara ku haysataa say alxamdulilah gabdhaa la isiiyey wiila la ima siin wiilalaa la siiyey maanta dhan waxaadan haysanaa ka daba ordaysaa waxaa haysatana weligaa ma mahad celinaysid shayga aan ilaahay subxaana watacaala looga mahad celinna wuu tagaa nicmada zawaalkeeda waa cadam shukr inaa ilaahay u mahad celin oodan inaa time qaadataa alxamdulilah ilaahay intaanu isiiyey alxamdulilah muslimaa layga dhiga meeqa gaalaa joogto laa yafqahuuna shay-an alxamdulilah ilaahay u sujuudi karaa dhibaato yar hadday imaato qur-aana akhrisan karaa alxamdulilah alxamdulilah amriga muslimka oo dhan waa khayr على الأقل الله يقانا قفك مسلمك إلهي يقانا مركا الحمد لله ده انت خلقي الدونك كنونو بليونسكا عادي ما انت إلهي سبحانه وتعالى واتقانا إنه قفك برمو باهند وأكد لتي أبها أبوها إهل كاقي ولنا مسلمين إن شاء الله نجنك وذا كل ميسين مركا اسمعي and say الحمد لله